duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa si lama filaan ah waxa uu hareeyay khaladaad istiraatiiji ah kuwa xeeladeed shidaal iyo cunto yari gawaari dagaal oo laga cararay diyaarado la soo riday iyo dhimashada askar badan waxa sidaas shaaciyay khubaro Mareykan ah hase yeeshee guuldarooyinka Ruushka ee maalmaha hore ee dagaalku ay ku jirto inay yareysteen sida ay Ukrainiyiinta uga go'an tahay inay dagaalamaan ayaa hogaamin karta in xukuumadda Moscow ay go'aansato inay ooda ka qaado dhammaan awoodaheeda ayna si aan kala sooc lahayn u burburiso qaybo badan oo kamid ah Ukraine sida khubaradu sheegeen khubarada Mareykanka ee darsay militariga Ruushka ayaa sheegay inay aad ula yaabeen maamul xumada Ruushka ee ololahani oo ay ku lumiyeen boqolaal gawaarida dagaalka ah iyo in Ukrainiyiintu ay ka hortageen in ciidamada cirka ee Kremlinka ay maamulaan hawada waxa intaasi dheer waxa ay filayaan in niyadjabka Putin ee maalmaha hore ee dagaalku ay hogaamin karto inuu ooda ka qaado dhammaan awoodiisa buuxda ee hubka gantaalada iyo cirka kuna sii daayo shacabka Ukraine iyadoo wadata saameyn burbur golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa iyaguna Arbacadii shalay u codeeyay mooshin lagu cambaareynayay duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine kulankani oo aan ahayn mid caadi ah ayaa yimid kadib markii golaha ammaanka uu ka soo bixi waayay go'aan maadaama uu golahaasi guddoonka u hayo dalka Ruushku 193 wadan ee xubnaha ka ah qaramada midoobay ayay 141 wadan oo ay ku jirto Soomaaliya taageereen mooshinka lagu cambaareynayo Ruushka isla markaana loogu baaqayo inuu si degdeg ah oo xujo la'aan ah ciidamadiisa ugala baxo dalka Ukraine waxaana codbixintani ka aamusay 35 wadan oo ay ku jiraan China, Hindiya, Koonfur Afrika halka 5 wadan oo kaliya ay cod dheer ku diideen mooshinka dalalkaasi oo kala ah Kuuriyada Waqooyi, Eritrea, Syria, Belarus iyo Ruushka geesta kale wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo jir sharaa'id ku qabtay magaalada Moscow isagoo ka jawaabaya hadalka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku sheegay in waxa kaliya ee lagu bedeli karo cunaqabatayntu haddii ay shaqayn weydo ay tahay dagaalkii saddexaad ee adduunka ayaa waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushku ka dhawaajiyay haddii uu dhaco dagaalka saddexaad ee adduunku uu noqon karo mid kaliya la isku adeegsado hubka sida ba'an wax u gumaaday ee nuclear-ka dawladda Faransiiska ayaa muwaadiniinteeda iyaduna u sheegtay inay ka baxaan dalka Ruushka haddii aan joogitaankoodu muhiim ahayn maadaama colaadda Ukraine aad u sii xumaanayso sidoo kale wadamada UK iyo Mareykanka ayaa iyaguna digniino tan la mid ah ka soo saaray guud ahaan waxa la mamnuucay diyaaradaha Ruushka ee soo galaya wadamadan dawladda Britain ayaa iyaduna ku dhawaaqday cunaqabatayntii ugu horeysay ee ka dhan ah dalka Belarus oo ku saabsan taageerada ay u fidisay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine tallaabadani ayaa imanaysa maalmo kadib markii Britain ay cunaqabatayn ku soo rogtay bandhigyada Ruushka